maanta bilicda loo joogo iyo waxaan arkayno waa wax dadka deegaankan galweyn ay samaysteen weeyaan maanta waa anaga ciid gaar ay noo tahay wax bulshada deegaanka galweyn ay samaysteen waa taariikhda markii ugu horeysay oo aan arkayno u dabaaldegayno shay anaga aan quruxsanay ka soo qayb galayno aan ku farxayno ku dabaaldegayno marka maanta reer deegaanka galweyn waxay u tahay ciid gaar u ah iyaga waana wax lagu farxo adduunka dhanna loogu hambalyeeyay ku dayashan ay mudan yihiin haddii aan isku tiirsanaano isgarab qabsano oo aan isku kalsoonaano sidaan iyo si ka daran ayaan gaaraynaa bini'aadamku wuxuu wax ku noqon karaa markuu isaga midoobo oo howlihiisa iyo danihiisa isaga u midoobo bini'aadamka kaliya ma aan xayawaanaadka hataa marka u fiirisid shinnada waxay samaynaysaa malab aad u macaan badan waxay ku samaynaysaa hal meel markay ku kulanto ay ku midowdo awoodooda waxay ka soo saaraan malab aan bini'aadamka soo saari karin sidaas la mid ah awoorku meel uu ku kulma wuxuu samaynayaa dudun aanan bini'aadamka samayn karin waana xayawaan wuxuu ku sameeyaa awood la madeeyay waaye marka waxa soo dhan waxa sababaayo midnimada ay dadka ay midoowaan oo ay ku midoowaan arrimaha danahooda iyo ujeedkooda u midoowaan asawaysa marka midnimada maanta reer galweyn ay midoobeen ayaa waxaan ku gaarnay guusha maanta aan taaganahay iyo dabaaldeg aan sameynayno maanta taas ayaa sababtay sida waxay mudan tahay marka inaan joogtayno